lugooyo weey anigu lugooyo aanu arkaa iyaguna waxa la rabaa inay lugooyada fahmaan been anigu ina iska dhaadhiciyo ma ahan ilaad waxaan gudoomiyaha gobolka Sool waxaan gudoomiyaha gobolka Xudun waa khalad in lacag lagu bixiyo intii Puntland ay dhisnayd oo asaaskeedii waa soo joogtay intii dhexe iyo ilaa intii boqol lug baad ku soo lahayd ilaa xukuumadda Cabdiwali oo dadka ka galo lagu tirin jiray ama la dhacsan si wuxuu waday gobolka Sool wuxuu ka mid ahaa gobolladii lagu dhisay Puntland waliba qayb weyn ka soo qaatay gacanta Puntland ayuu ka baxay gobolkaasi 2007 muddada kadib dawladii Faroole ilaa iyo tii Cadda Muuse labadaba wasiir baad ka ahayd oo waxa dadku filanayeen expectation baa jiray ah in mar uu gobolkaas uu soo noqon karo maxaa siyaasadda ay kala hayeen horta si gaar ah xukuumadii Faroole oo kale iyo tii Cabdiwali walaal horta waxa weeye siyaasadda laftirkeedu waxa waa in shacabka ka timaado weeye waa in dadka kasbatid dadku hadii Sool la xoreynayo waa in ay ka timaada waxa laga rabaa intii aad adigu technical iyo baabuur iyo hub iyo ciidan dad aan ku rabin aad u geyn lahayd waxa la rabaa marka ugu horeysa dadka kasbo dadka waxa u sameeyay ceelal si indirect ugu sameey inuu ma gaari kartid laakiin waxa jooga xildhibaano ka soo horjeeda adoo ku controlay dadka baahidooda ugu dadkaas maxay qabaan tuulaas biyo la'aan baahays ceel u qod way ogaadayaan ceelka cid u qoday tuulaas maxaa hay waxbarasho la'aan iskuul u dhis tuulaas maxaa haya dhaqaale xuma haysa u sabay in dhaqaale dadkii markuu isku kaasheegayaan waxa la walaal anaga Puntland baa noo fiican ceelkaas iyada qoday iskuulkaas iyada waxaysay laakiin in hadii inta xoogaa loo soo dhigo jeebkiisa ku soo qaata la yiraahdo dagaal baa la sameeynaayo meesha la xoreeyay war bax baa leeyahay marka dadka kuma rabo anigu marka waxaan qabaa kulligood waa khaldanaayeen campaign bay ku galayeen in macnaha yiraahdaan wadankaas aan rabaa inaan xoreeyo ma xoreeynis dadka marka xoreeynis dadka dhaxgal hadda ka soo qaad xilliga Cabdiwali oo kaleeto dadku ayaga rabay in la xoreeyo ayaga raadiyalkaan garanaysid ma taqaana TV iyandaas jiray magaciisa hadda ma xasuusto waxay soo saari jireen dhibaato culays baan haysta culays baan la ku hayaa dawladeedii baan rabnaa kala rabnaa xaqaan rabnaa kana qofkaas oo kale waa la taageeraa ma yaani Cabdiwali hal taageerinaan lahaa laakiin rabitaanku meeshu ka jira la taageeraa dadka waxa la rabaa in la abuurto waxa la rabaa dadka inaad dadka noocaas aad weydiiso taad maxaa idin qabanaa dawladda tihiin maalin baad xiroobi doontaan maalin baad gaari doontaan xagee dhib idin ka haysta idin qabta waxa la iyada u badisaa raba ayada saas noo qabo xagga cadaalad xumaan naga haysta kana rabnaa qof isku ka xira u baahanahay qofka ma inuu qof iska suuq joogo magaalada joogo qofkaas Soolba ka soo jeeda kala gudoomiyaha lagaga dhigo oo intuu dhaho meel lix ka soo laabto xoogaas lacagta qaataan oo dhaho dadkii waa fiicnaayn waa qurux badan madaxdu waa dadka ugu dambeeyay oo runta ogaada weeye konton ka shayaadiinta ka sokayso baabeenu sheega ma ogtahay waa lagu jecel yahay shalay hal waxaan tagay tuulo hebel waxa sida lagu hadalhayo yaab baa ku dilahaya oo masaakiin madax waa yatiin halkaas ay fadhiyaan godkaas kama soo baxaan ninka madaxda waxa la rabaa inuu banaanka u soo baxo oo karadoorka u soo fariiso qalbihii oo dadka indheer garadka ah yaani dadka la sheekaysto oo tala laga siiyo intuu maanta dhamar aniga qaabil la mar faarax qaabil la mar khadar qaabil la mar waxa la rabaa in banaanka uu soo fariisto oo haduu rabo laba iyo saddex yahay ballan qaado marar badan waxa jiray kacdoon dadku sameeyeen jabhadda SSC baa la sameeyay xilliga adigu xukuumadii ka tirsanayd xukuumadii Faroole aad bay ula dirtay jabhadaas iyo kacdoonka shacabka deegaankaas siyaasad cadna iyadoo lama imaanin xagee wax iska qaban lahaayeen والله وحياه اسك قبل لها waa yaani runtii wada taaban golaha wasiirada kale waa laga shiri jiray arimahan walaal waxa weey ma taqaana waxa la yiri runta hadaan salka ka maxaa iska soo bixinin ma samaato xaajadan sida daba ari loo fiiday ma samaato leeyahay nalka aniga maalin walba nalkaas oo maalin walba gubta hadaa waxa sababta keenaysa inuu nalku gubta daan ogaan oo maalin walba muraad iska bedel dhibaato imaanaysa waxa loo baahan yahay kacdoonku meeshu ka imaanayo ma kacdoon aad siyaasad ku raadinaysa adiga mise waa kacdoon run dadka ka soo dhaxbaxay hadaa mid aad siyaasad ku raadinaysa ay tahay waa xumbo waa baaba'aya isla markaba haduu laakiin mid dadka ka yimid run ay tahay waxa suurta gali waayeen hadeerto
waxaa la rabaa inaad dadka la shaad tusaalo kale ka soo qaad xilliga cabdiwa dadkii oo dhan baa kacay waxay isku direen qoladii la joogan xataa waa isku direen waa la xirxiray waa la galay wax kasta la sameeyay haddana meel dhexe waxaa la yiri nin baa raba kambeyn inuu ku kacsado sheekada halkaas ku dhamaan dawladda hore bartaba kama soo qaadin waxaa la rabaa waxa la sameynayo inay yihiin wax sharciyeysan sool baa la soo celinaya ama meesha la soo celinaya waxa dadka kasbo dadku waxa laga yaabaa marka qaarkood hadii ku rabinino cid dadkaas kale u fiican yihiin oo biyo siiyaan oo caafimaad siiyaan oo waxbarasho siiyaan oo dagaal la'aan iyo nabad ay ku joogaan meesha sabab dagaal usoo kordhistaan ma rabaan laakiin haddii meelo kale laga fiirsho la yiraahdo xuquuqdiina ma maqan hal tusaale haddaan ku soo qaado doorashada ugu dambeysay Soomaaliland ka dhacday sool يعني waxa ka soo baxay xildhibaano aan u dhalan oo macnaha u dhalan markaan ku leeyahay ma aha dadka degan kama hadlayo muxuu ahaayay afar xildhibaan kaliya ka soo baxday gobolka Sool waxa dhow 17 meelahaas xildhibaan oo kalena oo reer Sool ahaana dad kale ka soo baxay deegaanka Sool ahaa marka macnaha deegaankaaga dhawaa la baabaash bari waxa noqonaysaa minority nin u dhashay gobol kale baa ka soo baxay deegaankaagii dadka marka saas oo kale ku kambeyn gareyn karta waxa la dhigi karaa ma waxa raali ka tiin gobolkiini in dad dhul gobol kale leh ay gobolkiini soo garaan oo ka soo baxaan idinkiina ama minority ku noqotaan waxyaabahaas oo kale waa heeriyo gumeysi waa heeriyo dhul boob waa heeriyo aan lagu rabinin marka dadka inaad su'aashiida waxay ahayd xukuumadii Faroole gobolka Sool hay siyaasadda kale aad ka mid ka ahayd adigu wallahi siyaasad in dib u socodsi kama lahayn laakiin dadka jooga la qanciyo mararka qaarkood inay dawladdu gobolkaas uu yahay gobol ka tirsan way dhici jirtay oo mararka qaarkood wasiirada xildhibaanada inta loo yeero markay qaylqayliyaan oo dhahan gobolka Soomaaliya la soo ceshbaa la ordadee taga oo qaabkii lagu soo celin lahaa keena marka kama go'neen marnaba Puntland ma arkinin istiraatiijiyo cad oo ay ku soo celinayso gobolkaas sababta waxa waaye marka qof laga lama xiriiro qof gudoomiye ah riyo lama magacaabo maxaan u magacaabay gobolkan ma haystaba maxaan gudoomiye ugu magacaabaya gobolkan gudoomiye u magacaabay ma gacanteedu kuma jiro waqti aan ku soo celinay ma aqaano been anigu in iska dhaadhiciyo ma ahan iraado waxaan gudoomiyaha gobolka Sool waxaan gudoomiyaha gobolka Xudun waa khalad in lacag lagu bixiyo meesha qofkaas ku bixin lahayd lacagtaas yar oo siinaysid waxa la rabaa u dir toos qof muxuu ahaay shacab caadi oo taqaan waxa ku tirada magaaladaas Puntland marka arimahaas Puntland ay sameynayso marka dadka shacabka gobolkaas lugooyo inay ku yihiin lugooyo weey anigu lugooyo aan u arkaa iyaguna waxa la rabaa inay lugooyada fahmaan waana mid keentay inay ka bixin garoowe waa isan aadin Sool iyo gobolladii aadin qofka xildhibaanka la soo dooranayo waxa la rabaa qof bulshada haduu rabo siyaasad ahaan idin kula jiro laakiin inuu deegaanka nin ka soo baxay aadi kara ku noqon kara wax ku celin kara waa inuu yahay laakiin waligiis yaaliis garoowe joogay oo marka fasaxa la gaaro inuu gaalkacyo yimaado ama boosaaso aadam mooyaan aan gobolkiisa aadeen maaha in la qiimeeyo xataa maaha in la qiimeeyo xataa maaha halka gobolka adigu maxaa aragtaa hadii maanta lagu raatala soo jeed aniga wallahi xalan gobolka waxaan dhihi lahaa ma taqaanaa waxaan dhihi lahaa xildhibaan kasta iyo wasiir kasta waa inuu deegaankii uu ka yimid ku noqdaa waa inuu baahidiisa soo keenaa waa in wax loo qaban karo ogaada waa inuu ka soo dhaxadlaa oo dadkii hadlayo waxaan rabnaa waxaas waa inaan arkaa laakiin nin halka fadhiya oo aan dadkii ku noqonayn oo xiriir la lahayn oo wax u geeyeen oo halkaas lagu biilayo oo bariis halkaas ku cunaya anigu waxa weeyaan waan ogaanayaa markaas inuu sanin u shaqeynin tarankiisa dhameys tartiibtiisa ku dhameys kalamana hadlayo baarlamaanka markuu adoo inta fartaaga gobolka Sool maxaa laga waxba laga damcin baan leeyahay baan dhihi lahaa anigu kulli laakiin dawladdu waxay rabtaa isku haynta wax fiican in gobolada la isku hayo oo deegaanka la isku hayo laakiin waa inaad wax ku bedeshaa hadaa aragtay siyaasadda ka khariban tahay oo siyaasadaada aysan ku suurtagelin markaan aan dagaal ku soo celin waxaad kamid ahayd asaasiyaashii Puntland shirkii xog hayn baad ka ahayd shirweynihii Puntland lagu aasaasay kontoniyada afraad dad badan oo asaasiyaashii Puntland shirka fadhiyay ayaa qabay aragti ah gobolka Sool in aan lagu soo darin Puntland oo goboladii waqooyi bari kaliya ay noqdaan Puntland laga dhiso halka Cabdullaahi Yuusufna uu ku adkeysanay gobolkaas inuu ka noqdo isagoo markaas la leeyahay isaga laftigiisa wuxuu ka dhaxarkay dantiisa siyaasadeed waxa jiray aragtidii markaas ay dadkaasi qabeen ahaa in aan gobolkaasi uusan ku soo darsamin Puntland
ma la dhihi karaa qayb ay ka tahay gobolkaas inuu sii maqnaado dhibanana u ahaado marka xaaladda hadda jirta ninkii madaxweynaha ahaa oo ka mid ahaa shalay dadkii aan soo leysanaag rabin do you think maanta inuu soo celinayo ma soo celinayo oo iyadoo la jeeda de qof anigu lama qof hadda ma jeekeero dawlad yaqaana laakiin aniga mabaadiidayda waa la yaqaana marka dawladda ku jirto waxa la jeeda madaxweynaha marka hore mabaadiidiisa ay kamid ahayd in uu gobolada waqooyi bari ay gaalkacyo iyo mudug iyo nugaal iyo intaas ay noqdaan ku noqona aaminsanaa de wuxuu rabaa inuu xoojiyo intaan kaliya marna mabdiisu isma bedelinin marka madaxweyne Puntland soo maray mabda aaminsanaa ma jira waa jiraha okay ma waa la yaqaan anuu hebel ma dhahayo mar inaan qofkood garay magaciisa laakiin waxa weeyaan Puntland isku haynteedu waxa weeye inay mabaadi ku tahay hadaad madaxweyne tahay iyo hadaad howlwadeen tahay in ay isku xirnaato intaas oo gobol isku xirnaadaan waa inay mabda'aaga hore oo lagu yaqaano track recordkaaga waa inuu kugu xiray Puntland waa iswada taqaanaa ma raba aniga inaan kood garayo dhaho hebel iyo hebel iyo hebel dhaho laakiin waxaa la rabaa qofka ay ka go'an tahay baa marka hore la rabaa inaad dooratid haddii adiga lasirkaaga kaa go'an daarta laakiin aad laba afleysid oo halkaana lu kula jidha xagga lu kula jidhid dee ma rabtid markaad xagga tagtid wax ka cun xagga ka cun qaar waxaan garanayaa wasiiro annaga noo ahaa oo labada dhinacba la jiray baan garanayaa anugu oo habeenkiina la soo qayili jiray Somaliland maalintiina joog jiray Puntland baan garanaynaa kuwa inta lacag loo dhiibay hanti loo dhiibay la yiraahdo daacadnimo ay ka ahayd oo la yiraahdo ord gobolkii geeyo dadkii wuxuu soo sheego dadkii waa la rabaa inta xagga ka maro lacagtooda hore u qaata waa la yaqaanaa Puntland waa la yaqaanaa waxaa la rabaa dadka runta ay uga go'an tahay in aad muxuu istaraatiijiye ka leedahay ma aha kaliya laab la kacina aan dhaho Soomaaliya hadda waaba abaadeenba oo de sanado badan baa maqnaa laakiin still dadka la kasbadaa dadkana waxa lagu kasbadaa qodob cad oo la yaqaan oo ah halkan waa ka tirsan tahay oo kuma ahid marti waad u dhalat waxbaad ka qabsan kartaa dhinacaana yani waxba laga siiya laakiin lagu ma aaminsan inaad dhulahaan ku leedahay adigu waxa la rabaa dadka inaad bedeshid muxuu ahaayay siyaasadooda aad kula shaqaysid inaad ku leedahay galaangal gudaha ku leedahay dad ba jira galaangalka gudaha ku leedahay waxa jira siyaasadaha hadda oo ololeynaya dib u eegista Puntland waxa la yiraahdaa oo dad ba aaminsan in gobolkaasi arrimihiisa dib loo eego hadii Puntland xuduudaheeda oo kale anu waa qaba waxa waa Puntland labo inay xoreyso xuduudaheeda iyo goboladeeda oo dadka xildhibaanada ka imaanaya marka ugu horeysaba lagu doorto qof jecel gobolkiisa inuu dib u soo cesho oo gobolkiisa ka shaqeeyo oo dadkiisa wax u taro in lagu soo doorto kaas hadii dawladda soo galo de waxba bedeli lahaa laakiin mid ka raba asaga naftiisa inuu wax cuno seexdo hotel dego raaxaysto gaarigiisa wato gobolkiina aan lu ku lahayn de macna ma sameeyso marka in dib eegis loo sameeyo dantaaba noqonaysa waxay noqonaysaa in ama de resource waa loo sameeyo xildhibaanadii waa loo sameeyo oo Soomaaliya salaag inay ka badan yihiin maana kaama yara ya xuquuq hadii la dhaho shaqaalaha wadanka ka shaqeeyo garowe ka wada shaqeeyaan qaarna de waxay isaga qorayeen Soomaaliya lacag bay ku qaataan marka waxaa la rabaa inay ama Puntland noqoto saddexdan gobol oo resource-geeda ayada gobolada adiga kale si waxa rabtid oo tolnimo u si darsinimo u xoolahaaga si laakiin resource-geedu in uu meel aan haysto oo aado iyo in lagu xisaabtamo la yiraahdo reer Soomaaliya reer Sanaag ku dar madaxweyne ku xigeenkooda ku dar inaad tiraahdid waxaan ka rabaa istaraatiijiyad oo A B C D ah oo ah gobolkaas aad xuquuq qabanaysaa ama ha noqoto inaad hanti ugu qabanaysaan ama ha noqoto siyaasiyan ama ha noqoto bulsho ahaan oo bulshada inaad isku xirtaan wacigeeda bedeshaan waxaa la rabaa xildhibaanada iyo wasiirada in qaar lacag la siiyo oo hanti la siiyo oo la yiraahdo tag buuhoodle fariiso bil fadhi 2 bilood fadhi dadka waxay gali biyo u samee waxbarasho u samee aqligooda soo celi waxa ka jira aragtida dhahaysa madaxda Puntland soo martay qaarkood inay aaminsan yihiin deegaanadaas inay ahaadaan waxa la yiraahdo buffer zone oo والله I don't think أنا waxaan aaminsanahay nin kasto madax soo mara waa rabaa yani inuu muxuu ahaaye haysto
cudud goboleed inuu haysto wuu rabaa hadda tusaale oo kaleeto xamar oo kaleeto isdiriraysa dawladeeda marka isdirtaan waxay ka shaqeynaysaa inay goboladaas kugu dirto adiga ka mid ah oo wax adiga aad siin kartid ayagu u soo diraan dadkaaga daawo u baahan oo u jeedid oo daawada aad heli kadid marka adigu inta u dir wada xamar inta looga soo diray la geeyo xamar bay jeclaanay adigu ma rabaan marka waxa loo baahan yahay mar walba baarlamaanada markaan ku jirno kale dadka reer Sool baa farta taagaya maxaa dawladdu ka qabtaa xoreynta gobolka Sool iyo Sanaag maxay bay ka qabtaa bay leeyihiin ama dad madax waxaan dhihi lahaa xukuma qabo sababta kow adigu adaa gudoomiye adaa wasiir ah adaa xildhibaan ah adaa siyaasi ah tag adigu marka hore tag keen wada aan kugu loo shaqeeyo keen hadda adu halkaan fadhid waxa su'aasha ii weydiinaysa kal fadhi ka samaanta la furayo anigu waa qabaa anigu waxaan ahay dadkii aaminsanaa gobolada Sool iyo Sanaag iyo waqooyi bari inay isku xirnaadaan inay Puntland wada yihiin weyna yihiin qofka reer Sool ah markuu Puntland joogo ownership uu dareemayaa inuu wax ku leeyahay Puntland wuxuu ka dhistaa wuxuu ka gataa waxbuu ka jooga idna ma wuxuu ahay fuquuqdo laakiin markuu Hargeysa joogo waa la fuquuqaa marka waxaa la rabaa dadka Sool iyo Sanaag iyo ka soo jeeda ayaga la rabaa inay keenaan istiraatiijiyadii gobolkooda waxay ugu qaban lahaayeen haddaan xataa halkaan joogo oo siyaasiyan gobolku iga maqan yahay laakiin qalbiyan ila jiro oo aan biyo u sameeyo oo waxbarashada u sameeyo oo aan horumarinta u sameeyo oo aan dad xataa inta ka keeno u tababaro oo dadkii ceshaan xataa waa wax weyn waaye haddaan 20 gabdhood waxa leeyahay waxa loo tababarayaa horumarinta reer miyiga 20 gabdhood reer garowe degan oo laakiin gobol ka soo jeeda la qoraya anigu ma qoreen waxaan qorayaa 20 gabdhood oo ka soo jeeda Buuhoodle iyo muxuu ahaay tuulooyinka hoos yimaada ama Sool iyo ama Sanaag Sool hoos yimaada ama Sanaagta fog hoos yimaada baan gabdhaha ka soo kaxayn lahaa waxbaan bari lahaa waxbaan u sameyn lahaa waxaan dhihi lahaa gobolka aad ka soo jeedaan maxaad u qaban kadhaa ku celin kadhaa waxyaabo yar yar oo niyad dhisaan siin lahaa mashruuc oo ku taxalluqa waa noqon lahaayeen jaa 20 kale influence gareynayaan dadka kale influence gareey kuwa kale influence gareey laakiin ma la sameeyay ana og gabadha waligeed garow aan ka bixin oo sidii loo soo qaxay aan garow ka bixin ba halkaan ii soo fadhida seminar waxay leedahay anoo ka tirsan gobolka Sool Sool maxaa u tahay 10 sano ma tagin waligeed ma tagin yaa leeyahay waxaan rabaa aniga in dadka gudaha jooga gudoomiyaha qofka u magaca lacagta qaadan qof gudaha jooga intuu tago uu yiraahdo soo qordad ka soo qorto magaalada dadkan siyaasad lagu ma haysto waxay baranayaan aqoon bay baran jaacada loo at the end of the year hadii la helo 20 gabdhood oo ka tirsan muxuu Woodwood ama tuulakaas ka tirsan oo jaamacada ka baxday Woodwood ku noqota de waa guul xaga ka soo baxday jaamacada Hiblaayo xageed tahay Puntland waa wax weyn waay 20 gabdhood oo nurse ka soo baxday xageed ku soo tababaratay Puntland meeshaas ay magaalada ku noqotay laakiin 20 gabdhood oo waligeed ka soo bixin hooyad maanta soo qaxaysay 2 sano iyo 3 sano jiray maxay ka taqaanaa Woodwood iyo Sool iyo Sanaag ka taqaanaa marka aniga waxaan rabaa siyaasadda dib u eegista 100% baa raacsana gobolka Puntland oo wax la yaqaano oo istiraatiijiga la yimaadaan ama ay yiraahdaan anagu Soomaaliland baan nahay dadka xataa waxaan aaminsanahay in international market monitors caadi la keeno loo tago la yiraahdo ma Puntland baartaan Soomaaliland oo ay qoraan dadka dhexda ku dhinteen waa baabeen horumar ma laha deegaan ma laha waxbarasho ma laha caafimaad fiican ma laha infrastructure ma laha way ku dhex dhinteen Sool iyo Sanaag waxa la rabaa marka inay mididu inta go'do oo dhexda ka go'do meesha ay wax ka helayaan toos uga helaan ama ay toos uga waayaan marka gaaladu ma rabto waxa iska rabtaa muxuu ahaa dispute zoneskaas oo ay labada dhinac wax ku siinayso xoogaa loo tuurahayo kuwaasna xoogaa u tuureen kuwana xoogaa u tuurayaan dawladda Soomaalidu iyo Puntland waligoodii Allah da heshiis ma yeelan iyo siyaasad fiican oo dadkooda isku soo jiidaysa iyaga laftirkoodu ma muxuu ahaaye daneeyaan waxa la rabaa Puntland inay ku faraxdo hadii dawladda federaalku ay u keento diyaarad macaawina ay tirada baga sax ma keeneen ha qaat waxin laakiin ay maxaa loo keen halkaan ka tirsan ma xagga loo keen ma aha waa cadownimo waay taasoo kalena ma arka inay siyaasad tahay waxa la rabaa qofkaaga hadii aad awood weyday meesha doono waxa ka helo Soomaaliland ka helo tan ka helo xagga ka helo kana ka helo ayaga aakhirkooda meel isku raaci doona aad iyo mahadsan tahay caasho geela diriye
taxanayaashii barnaamijkii Martisoor inta ay ku soo gabagabeynayna ma maadsantahay dadkan waxaan leenahay raali naga ahaadaano warkaygu idinku bartay maalgelinta bangiga salaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shariicada islaamka waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo gali kara iib xalaala sida guryaha gawaarida badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib ah ama bilaa ah